بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale barta internetka idinkaga baaqaya annagoo aad nooga barateen inaanu idin soo gudbino wararkii ku saabsanaa corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale dalka Finland oo xaaladiisu ay maalinta ka dambaysa ka sii darayso ayaa hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga ee dalkan THL waxa ay maanta shaaca ka qaaday in viruska laga helay tiro gaaraysa 496 qof saaka hor subaxnimadii ayay THL sheegtay in tiradu ay tahay 570 hase yeeshee goor dambe oo barqadii ayay dib u saxeen waxaana ay sheegeen in 496 ay tahay taasi oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 23,148 qof. Isku darka guud waxaa viruska laga helay 62 magaalo. Meelaha ugu badan ee laga helayo faafista viruskana waxa ay kala yihiin sida tan: Helsinki 141 qof, Espoo 77 qof, Vantaa 67 qof, Lahti 50 qof, Oulu 22 qof, Joensuu 14 qof, Lambaalla 11 qof, Jyväskylä 9 qof, Porvoo 9 qof, Turku 6 qof, Parkano 6 qof, Järvenpää 6 qof iyo Siboo 5 qof iyo magaalooyinka kale oo intaasi ka yar. xanuunka corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 134 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaas oo 21 qof oo kamid ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. waxaa sidoo kale dhimashadu ay maraysaa 388 qof. guud ahaan xaaladaha caafimaad ee ama corona ee dalkan Finland ayaa waxa ay haatan yihiin mid ay marayso meeshii ugu darnayd iyadoo xaaladdu ay kasii darayso maalinba maalinka ka dambaysa dalkan Finland. Ra'iisul wasaaraha dalka Sanna Marin ayaa waxa ay sheegtay in xaaladdu ay tahay mid adag hase yeeshee aanay weli gaarsiisnayn in xukun degdeg ah wadanka lagu soo rogo. Wasiirka arrimaha qoyska iyo adeegyada asaasiga ah Krista Kiiro ayaa iduna shirka jaraa'id waxa ay ka sheegtay in si walwal haatan tirada faafista ama dadka laga helayo viruska corona ay aad u sii kordhayso. waxaana haatan gobolkan Uusima iyo gobolka Päijät-Häme labaduba ay ku jiraan heerkii ugu sarreeyay ee faafista ama heerka saddexaad ee faafista viruska la yiraahdo iyadoo bay tiri wadahadalna uu noo socdo inaanu gobolada kale aanu arrinkaasi kala hadalno isla markaana aan kuwa haatan khatar ugu jira ama qarka u saaran inay darajada saddexaad ee faafista galaan aanu sii siinay waxyaabihii hagista dheeraadka ahaa ee ay uga hortagi lahaayeen cudurka. ilaa iyo haatan waxaa darajada saddexaad ee faafista viruska dalkan Finland ku jira labada gobol ee kala ah gobolkan Uusima ee caasimadda iyo hareeraheeda iyo gobolka Päijät-Häme. sidoo kale darajada labaad ee karaar qaadashada cudurka ama viruska corona waxaa ku jira gobolada kala ah Kanta-Häme, Kymenlaakso, Länsi-Pohjan, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Vaasa iyo Varsinais-Suomi iyo Ahvenanmaa. 11 kale waxa ay ku jiraan heerka aasaaska ah ee faafista viruska inkasta oo qaar ka mid ah ay haatan ku dhowdahay ama ay qarka u saaran yihiin in ay galaan heerka labaad ee karaar qaadashada. kuwaasina waxa ay kala yihiin Alajärvi, Soini, Kruunubu, Joensuu, Rauma iyo Pori. wasaaradda caafimaadka arrimaha bulshada ayaa waxa ay soo saartay talooyin iyo amarro cusub oo loogu talagalay in looga hortago faafista viruska corona kuwaasi oo socon doona ilaa iyo 18 bisha labaad ee foodan ugu soo haysa. arrimaha ay wasaaraddu go'aanka ka gaartay waxaa ka mid ah in gabi ahaanba la joojiyay munaasabadaha guud ee dadka isugu imanayaan oo shalay la soo saaray in aan 20 ka badan la isugu iman karin laakiin hase yeeshee sida haatan wararka ugu dambeeyay ay ku soo saareen shirarkoodii in dhammaan munaasabadaha guud ee gudaha iyo dibadda ka dhacaya la joojin doono iyadoo lagu joojin doono amarka ay soo saaraan maamul goboleedka. sidoo kale waxaa la soo jeediyay in munaasabadaha gaarka aan la qabanqaabin karin isla markaana aan la isugu iman karin xitaa kuwa qoysaska wixii ka badan 10 qof iyadoo gaar ahaan arrinkaasi loogu qabtay ama loo yeelay arrimaha la xiriira aasidda meydka iyo janaasada. sidoo kale waxaa la soo saaray in goobaha guud ee dadku isugu yimaadaan sida dukaamada, holalka jimicsiga iyo dhammaan meelaha ay dadku ku kulmi karaan intaba la xiro. dukaamadu waa ay furnaan doonaan laakiin waxaa la xirayaa xarumaha waaweyn ee ganacsiga goobaha guud ay dadku dhex maraan oo la diiday in sidii hore oo kale loo dhex joogo.
sidoo kale waxa ay maamulku sheegeen in haatan laga wada hadlayo wixii laga yeeli doono caruurta da-doodu ay ka yar tahay 18 sano howlahooda waxbarashada iyo hiwaayadaha. waxaa kaloo sidoo kale la joojiyay dhammaan hiwaayadaha wixii ka waaweyn 18 qof. dhakhaatiirta ayaa iyaguna waxay sheegayaan xaaladdu inay haatan aada uga soo darayso. madaxa hay-adda nolol wanaag ee caafimaadka Mika Salminen ayaa waxa uu sheegay in haatan tirada faafistu ay aada usii korortay 30%, islamarkaana xaaladdu ay ku socoto jiha aan wanaagsanayn. shir jaraa'id oo maanta uu qabtay ayuu waxa uu ku sheegay Mika Salminen in dadka ka waaweyn 40 sano faafista fayrusku ay haatan si aada ugu soo siyaadayso. waxaa kaloo soo kordhaysa buu yiri tirada dhimashada iyo tirada dadka waaweyn ee xanuunka uu ku dhacayo. waxa uu sheegay in maanta oo keliya tiradu ay 500 ku dhawaatay, taasoo muujinaysa khatarta haatan arrinkaasi ka jirta. dhakhtarka sare ee ka tirsan isbitaalka jaamacadda ee Huso la yiraahdo Marku Makiyarvi ayaa isaguna waxa uu sheegay in xaaladda gobolkan Uusimaa haatan ay tahay mid aada u khatara. waxa uu sheegay in laga soo bilaabo Arbacadii ilaa Khamiista maanta tirada dadka isbitaalka la keenay xanuunka awgiis ay 20% kor u dhaaftay. waxa uu sheegay in isbitaalada haatan gobolkan Uusimaa ay ku jiraan 83 qof oo xanuunka awgiis la jiifa, iyadoo xaaladdu ay ku dhowdahay buu yiri sidii midii gugii la soo dhaafay. waxa uu sheegay in dadka bukaanka da-doodu ay u dhaxayso 27 ilaa 83 sano jir. sidaa darteed ayaanu ku talinaynaa buu yiri in dhammaan munaasabadaha guud ee dadku isugu yimaadaan la joojiyo, islamarkaana muddadan 3 toddobaad dadku ay ka baaqsadaan oo ay ka joogaan in ay si koox u kulmaan ama guryaha ay isugu tagaan. waxaanu soo jeedinaynaa buu yiri in shaqada laga qabto dhanka internetka, sidoo kale dugsiyada sare, macaahidda iyo dhammaan jaamacadaha iyo goobaha la isugu yimaadana in la xiro si markaasi khatarta cudurkani loo yareeyo. haddii sidaa la yeeli waayo ayuu yiri dhakhtarkaasi, waxaa markaa khatar loo galaya ama khatartu ay noqonaysaa buu yiri in daryeelka caafimaadku hawshiisu ay istaagto, ciriiru ay noqoto muddo dhowr toddobaad gudaheeda, taasi oo keeni karta buu yiri khatarta inay adkaato in markaasi la daryeelo bukaanka. wadanka oo dhan 134 bukaan ayaa isbitaalka u jiifa, kuwaas oo 21 ka midana ay ku jiraan qaybta xaaladda aadka u daran. sidoo kale waxa uu sheegay in haatan isbitaalada jaamacadda oo dhan la geliyay heegan, islamarkaana ay diyaar u yihiin tirada laga baqayo bukaanka cusub ee isa soo taraysa. waxaa iyaduna sidoo kale waraysi ay siisay dhakhtar sare oo ka tirsan isbitaalka jaamacadda oo la yiraahdo Eva Ruotsalainen ay tilmaantay in wadamo badan oo Yurub ay ku fashilmeen in ay ka hortagaan ama xadeeyaan viruska corona iyo faafistiisa. waxay ahayd bay tiri in mar hore xadeymo la soo rogo, islamarkaana arrinkaasi wax laga qabto markii bishii 9aad mowjada labaad ay bilaabatay. dib u dhacaasina uu keenay bay tiri in haatan hawshii ay faraha ka baxdo. waxa ay sheegtay in ay habboon tahay in cudurka marka uu cusub yahay isla markiiba hadba xadidaadaha loo baahan yahay lagu wado intii la sugi lahaa marka ay xaaladdu ay faraha ka baxdo. madaxa cadaaladda dalkan Finland Tuomas Puuster ayaa isaguna waxa uu sheegay in xukunka degdega haatan aysan ahayn in waqtigeeda la qaato, laakiin waxa uu xusuusiyay in xukunka degdega qaadashadiisu ay tahay wadada ugu dambaysa ama dariiqada ugu dambaysa ee la adeegsan karo. inta ka horeysana wuxuu yiri sida sharcigu qabo waa in la adeegsado dhammaan howlaha wax looga hortagi karo faafista ee ku filan ka hortaga ama joojinta cudurka. kooxda isku duwidda arrimaha corona ee gobolka Varsinais-Suomi ee caasimadiisu tahay Turku ayaa waxa ay u soo jeedinayaan dadweynaha gobolkaasi ku nool in ay ka baaqsadaan oo ay ka joogaan safarka ay ku imanayaan gobolkan Uusimaa wixii aan lagama maarmaan ahayn. arrinkaasi waxaa looga jeedaa buu yiri si loo ilaaliyo islamarkaana cudurka sida haatan xadka dhaafsan ugu faafaya caasimadda iyo hareeraheeda uusan u soo gaarin gobolkaasi Varsinais-Suomi oo isagu ku jira heerka 2 ee karaar qaadashada. sidoo kale kooxdaasi ka hortaga arrimaha corona ee gobolkaasi waxa ay soo jeedinayaan in dhammaanba isu imaatinka goobaha isboortiga iyo ciyaaraha la joojiyo, islamarkaana dadku aanay kulamo noocaas oo kale gudaha iyo dibaddaba aanay isugu imaanin.
warshada weyn ee la yiraahdo Stora Enso ee kartoonada soo saarta ee magaalada Oulu ayaa shaqadeedii istaagtay kadib markii faafista viruska corona ay warshada si xun u dhex gashay. waxaa la sheegayaa in ilaa iyo kun qof wax ka badan oo shaqaalaha warshadaasi ah haatan laga qaadi doono baaritaanka. maamulka warshadu waa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada dadka laga helay viruska iyo kuwa karantiilka la geliyay. hase yeeshee sida uu sheegay madaxa warshadaasi Juha Mäkimatila, waxa uu sheegay in arrinkaasi maalin walba uu soo ifbaxaya islamarkaana ilaa iyo bisha November horaanteeda ay hawshu socotay, laakiinse aysan warshadu wax kale ka sheegin hawshaasi. waxaana haatan sida wararka lagu sheegay laga qaadi doonaa baaritaan dhammaanba shaqaalaha warshadaasi. gobolka Kantahame ayaa isaguna xaaladda faafista viruska corona ee gobolkaasi waxa ay ku socotaa jiha aad u xun. waxaana haatan la sheegayaa sida maamulka gobolkaasi uu sheegay in 1.9% ay dadka laga qaaday faafista virusku noqdeen natiijadii kasoo baxday, taasi oo ku dhow heerka khatarta ah oo ah 2%, oo haddii uu gaaro markaasi xaaladdu ay faraha ka baxayso. toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa tiradii ugu badnayd ee tan iyo cudurka safmarka wadankan markuu ka bilowday waxaa laga helay gobolkaasi Kantahame, taasi oo ahayd 47, halka toddobaadyadii ka horeeya meesha ugu sarreysa ay 38 ahayd. sidaasna waxaa tilmaamay dhakhtar sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee gobolkaasi Kantahame, Salo Yarvela. dhinaca wararka gudaha ayaynu weli ku jirnaaye duqa magaalada Esbo Yuka Makela ayaa maanta waxa uu kulan la yeeshay imaamyada iyo wakiilada masaajida ee magaalada Esbo. kulankaasi waxa ujeedadiisu ahayd sidii la isaga kaashan lahaa dadaalka ay dowladdu ugu jirto sidii qaab wadajir looga hortagi lahaa faafista cudurka safmarka ee corona. duqa magaalada Esbo waxa uu sheegay in hore shirar badan uu la soo yeeshay imaamyada iyo maamulada masaajida ayna arrimo badan oo khuseeya horumarka magaalada ka wada hadleen. shirarkaas oo uu sheegay duqa magaalada in horumar weyn laga gaaray hadda oo adduunka dhan uu ka jiro cudurka safmarka ee corona ay muhiim tahay buu yiri inaan kulamo noocaas oo kale ay yeelano. Yuka Makela waxa uu sheegay in ay muhiim tahay sidii looga wada shaqayn lahaa ka hortagga faafista cudurka corona si la mid ah sidii looga wada shaqeeyay gugii la soo dhaafay oo mowjadiisii koowaad ee caalamka oo dhan ruxday, taasoo natiijadii wada shaqayntaas ka soo baxday ay noqotay buu yiri in tiradii badneed ee faafistu ay hoos u dhacdo. duqa magaaladu waxa uu sheegay in tirakoob la sameeyay oo reer Esbo lagu weydiinayay xadidaadihii la soo rogay gugii la soo dhaafay ay 86% sheegeen inay ahaayeen kuwa faa'iido loo baahnaa isla markaana xambaarsanaa fariimo cadcad. sidaas awgeed ayuu yiri Yuka Makela waa in casharadii aan gugii ka baranay aan ka faa'iideysana isla markaana aan ku dadaalno sidii aan u raaci lahayn hagista iyo tala soo jeedinta howlwadeennada caafimaadka sida nadaafadda caafimaadka ee gacmo dhaqista, in qofka marka uu qufacayo cududiisa uu soo laabo gacantiisa uu af ku daboolo, kala fogaanshaha iyo afshareerka oo la qaato. maruu ka hadlayay mowjada labaad ee xaaladda cudurka safmarka corona iyo magaalada Esbo wuxuu Yuka Makela sheegay in tirakoob la sameeyay uu haatan xanuunku ku badnaa dadka da'doodu u dhaxayso 40 ilaa 56 sano jir. sidoo kalena ay jireen buu yiri arrimo tilmaamaya in xanuunka laga helay dadka da'doodu ay ka weyn tahay 70 sano. arrinkaasoo buu yiri walwal nagu keenay waayo xilligii mowjada koowaad ee gugii la soo dhaafay waxaa reer Esbo cudurkan corona awgis uga dhintay buu yiri 20 qof oo waayeelo ah. inkastoo buu yiri haatan arrinku intaa ka fiican yahay oo mowjadan labaad markay bilaabatay ilaa iyo iminka oo 1 qof oo waayeelo oo kaliya Esbo uga dhintay cudurka viruska corona. duqa magaalada Esbo Yuka Makela waxa uu yiri dalku waxa haatan u marayaa xaalad aad khatar u ah, taasoo keentay in howlihii daryeelka caafimaadku ay ciriiri noqdeen shaqada oo ka badatay awgeed. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba waxa ay ka hadleen ayuu yiri xaalkan, waxana ay cadeeyeen in arrinku uu meel khatar marayo loona baahan yahay in wadajir ahaan looga shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa in Finland ay ka dhacdo sida waxa ka dhacay dalal badan oo Yurub oo kale ah. sababtaas awgeed ayaan maanta isugu kiinyeeray haddii aad tihiin imaamyada iyo maamulada masaajida si aan idinku soo gudbiyo fariintaas aan ka wado madaxda dalka iyo inaan idinkala hadlo xadidaadaha cusub ee dowladdu ay soo rogtay iyo sidii aan uga wada shaqayn lahayn buu yiri meel marinta xadidaadahaas.
waxaa kaloo uu sheegay duqa magaalada Esbo in arrimaha cusub ee maanta la gaaray ay ka mid yihiin in la joojiyey dhammaanba munaasabadaha la isugu yimaado muddada 3 toddobaad. waxaa laga soo reebay oo keliya in ka qaybgalka aasitaanka marka uu qofku dhinto oo lagu soo koobay 10 qof. waxaana ay xadidaadahan socon doonaan buu yiri ilaa iyo 18 bisha 12 ee sanadkan, iyadoo kadibna kooxda isku duwidda arrimaha corona ay ka arrinsan doonaan waxa la yeeli doono sii socodka. sidoo kale waxaa la xiray goobaha guud ee dadku isugu yimaaday ee magaalada sida maktabadaha, hoolalka jimicsiga iyo goobaha kale ee hiwaayadaha oo dhammaanba la joojiyey. waxaana haatan aanu maanta ka wada hadlaynaa buu yiri wixii laga yeeli lahaa hiwaayadaha iyo waxbarashada arrimaha la xiriira caruurta da'doodu ay ka yar tahay 18 sano. intaa kadib waxaa hadalka qaatay madaxa arrimaha dadka wadanka u soo guuray ee magaalada Esbo, Temu Haba Lehto, oo duqa uga mahad celiyay warbixintaas kooban ee uu xaaladda oo dhan kaga waramay. waxaana uu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo sidii looga hortagi lahaa faafista cudurka. waxaa sidoo kale shirka ka hadlay dhammaanba imaamyadii iyo wakiiladii ka socday masaajidda Esbo, iyadoo qofba uu mar hadalka qaadanayay. waxa ay ka warbixiyeen sida ay masaajidu diyaarka ugu yihiin ka qayb qaadashada arrinkaas iyo in mar horeba ay qaateen talooyinka dhanka caafimaadka ee looga hortagayo faafista cudurka, sida kala fogaanshaha, afshareerka, jeermis dilaha gacmaha la marsado, iyo in sidoo kale ay warbixinaha iyo hagista oo luqad walba ku qoran ay ku dhajiyeen albaabada iyo boorarka ogeysiyada ee masaajidda. waxaa kaloo dhammaan imaamyada iyo maamulada masaajiddu ay sheegeen in iyagoo tixgelinaya duruufta adag ee wadanku uu marayo ay faafista cudurka corona ay dhammaan masaajidda Esbo go'aan ku gaareen in aan masaajidda lagu tukan doonin salaada jimcaha 3 toddobaad ee soo socota. salaadaha kalena lagu xadidi doono 10 qof oo kaliya. wixii tala soo jeedinaya hagis cusub ee arrinka ku saabsan ee ka soo baxa dhanka howlwadeenada dowladana ay masaajiddu si toos ah u qaadan doonaan. ugu dambeyntii waxaa shirka ka hadlay duqa magaalada Esbo, wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida wanaagsan ee masaajidda reer Esbo ay u diyaarsan yihiin, isla markaana ugu heelan yihiin ka qayb qaadashada ka hortagga fayruska, isagoo cadeeyay inuu aad ugu riyaaqay buu yiri inaad tihiin dad mas'uuliyiin oo dareemaya waajib ka saaran. weliba iyadoo aan shirkeenu dhicinna ka hor aad sii gaarteen go'aamo wax ku ool ah oo wax ka taraya ka hortagga cudurkan safmarka ah. waxaa shirka soo gabagabeeyey Saciid Aadan oo ah khabiir dhanka arrimaha ajaanibta magaalada Esbo, oo isagu ahaa qabanqaabiyaha shirka. waxaana uu maamulada masaajidda u ballan qaaday inuu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo wixii la xiriira arrimaha warbixinaha ku saabsan ka hortagga faafista viruska corona, isagoona ku booriyay inay si firfircoon ula socdaan bogga magaalada Esbo ee Esbo Bistafi oo had iyo goor la soo dhigo warbixinihii ugu dambeeyay ee la xiriiray viruska corona. iminkana wararkii caalamka. dalka Sweden oo xaaladda faafista viruska corona ay maalmahan ka soo daraysay ayaa haatan waxa uu virusku u dhacay aqalkii boqortooyada. waxaana viruska laga helay ninka iskale dhaxalka boqortinimada Prince Carl Philip iyo haweeneydiisa Prince Sofia. waxaana labadaba la sheegay in haatan xanuunku uu gaaray. sida ay sheegtay jaridada Aftonbladet, waxa ay sheegtay labadaba in astaamaha haya ay yihiin kuwo aad u fudud, ayna isla markaana caafimaad qabaan, haatanna ay ku jiraan guriga. waxaa sidoo kale baaritaan laga qaaday boqorka iyo boqoradda Carle Costa iyo Silvia, iyadoo markaasi laga cabsi qabo in xanuunku uu ku faafay. guud ahaan tirada guud ilaa iyo haatan caalamka laga helay viruska corona ayaa 60 milyan maraysa kadib markii xanuunku aad u faafay, waxaana tirada dhimashadu ay maraysaa 1.4 milyan. dalka Mareykanka ayaa ugu badan 13 milyan ayuu madaxa la galay, waxaana 24 saac la soo dhaafay cudurka u dhintay 2400 oo qof, sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins oo iyadoo arrimahaasi u kuurgasha. waana tiradii ugu badneed ee dhimasho ah ee soo marta 6 bilood muddo laga joogo. waxaa sidoo kale tirada faafista ama cudurka laga helay ay kor u dhaaftay 24 saac la soo dhaafay dalkaasi Mareykanka 200,000 oo qof. iyadoo dhibaatadaasi ay ka jirto ayaa haddana maxkamadda sare ee dalkaasi Mareykanka waxa ay maalintii shalay ahayd gaashaanka u daruurtay war uu soo gudbiyay ama qadiyad uu soo gudbiyay ninka isagu u sareeya ama duqa magaalada New York, oo sheegay ama doonayay in goobaha cibaadada lagu soo rogo xadeemo aad u adag kadib markii xanuunka viruska corona uu si aad ugu faafay. iyadoo maxkamaddu ka baaqsanaysa sida la sheegay
qaanuunka ama sharciga ah xorriyadaha diinta oo arrinkaasi uu taabanayo. in badanba waxaa muran arrinka ku saabsan uu ka dhexeeyay maamulka magaalada New York iyo kooxda xagjirka Yahuudda ee Al-Hasidis la yiraahdo oo magaalada New York xarun weyn ku leh, kuwaasi oo la sheegay inaanay u aabayeelin tala soo jeedinta ka imanaysa dhanka dowladda, khaasatan markay cibaadaysanayaan oo ay diideen inay kala fogaadaan. arrinkaasi oo magaalada New York khilaaf weyn ka dhaliyay kooxdaasi iyo maamulka magaalada. Mareykanka oo xaaladiisu aad uga soo darayso ayaa la sheegay dadka isbitaalka xanuunka ugu jira haatan 88,000 in ay shalay kor u dhaafeen, waxaana laga cabsi qabaa in xaaladdu ay kasii tarto iyadoo maalmahan waddankaasi ay ka jirto munaasabadda ama xafladda loo yaqaano maalinta mahadcelinta, taasi oo dalka oo dhan looga dabaaldegayo. dalka Jarmalka ayaa haweeneyda ka talisa dalkaasi Angela Merkel waxa iyaduna ay sheegtay in haatan ay iyada iyo hogaamiyaasha gobolada oo dhan isla qaateen in xadeymihii iyo go'aanadii hore u jiray la sii adkeeyo, waxaana la joojiyay dhammaanba cayaarihii barafka lagu dul taraarixi jiray ee waddankaasi xilliyadoona kale lagu qaban jiray ilaa iyo sanadka soo socda horaantiisa. waxaana markaasi ay sheegtay in haatan la sii adkeeyay xadidaadihii hore loogu soo rogay dalkaasi. dalka Jabaanna wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in xanuunku haatan uu aad u sii faafayo, taasi oo keentay markaasi in dalka Jabaan lagu soo rogo xadidaado cusub, sida in goor hore la xiro goobaha khamriga lagu iibiyo isla markaana shaqooyinkii maqaaxiyaha la soo koobo. sidaasina waxa sheegay maamulka magaalada Tokyo ee xarunta dalkaasi Jabaan. Bakistaanna waxa ay cilaamiyeen dowladoodu in la xirayo dhammaanba iskuulada isla markaana imtixaanaadka la dib dhigi doono si markaasi loo khafiifiyo tirada fayruska corona ee soo kordhaysa maalin walba. waxaana la sheegay haatan in dad aad u fara badan isbitaalka ay ugu jiraan Bakistaan xanuunka awgiis. Falastiinna wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay maanta in 1906 qof oo hor leh laga helay xanuunka fayruska corona, iyadoo dad ku dhow 20 ay 24 saac ee lasoo dhaafay ay xanuunka u dhinteen. wararkii ku saabsanaa fayruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale, dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanaya maanta intaasi ayaan kusoo koobaynaa. inta aanan ka bixin waxaan isu dardaarmaynaa, waad u jeedaan xaaladdu khatarta ay marayso, in haatan waddankii oo dhan la qaylinayo. marka walaalayaal, ha la yareeyo socodka, yaan guryaha la isugu tegin. sidoo kale qofku salaadiisa guriga ha isaga tukado, maadaama hadda masaajidii salaadaha jimcaha la joojiyay. salaadaha kale xitaa aadistooda in la iska yareeyo ayaa wanaagsan si khatarta loo yareeyo. waxaa haatan laga cabsi qabaa in isbitaaladii iyo qolyihii daryeelka caafimaadka ee hawshan ku daba jiray ay awoodoodii haatan soo yaraato, taasoo ka dhalanaysa tirada sii kordhaysa ee xanuunka laga helayo. si arrimahaasoo dhan loo yareeyo marka waa inaan ku caawinno in 3 toddobaad ee soo socota qofku bannaanka wixii daruuri inuu wax soo iibsanayo mooyaane uusan wax kale ugu bixin. dhowr bilood ayaan soo xiriisnayn, 3 toddobaad oo dantaadu ku jirto, danta walaalkaa ku jirto, danta dalka oo dhan ay ku jirto, wax ay kaa dhimaysa male. qof walow gurigaaga joog, cidna ha la kulmin. haddii aad dadka qaraabada rabto inaad la kulantana, dhinaca telefoonka iyo kaamirada iyo barnaamijyada la iskula xiriiraha lagu kulmo. khatartu aad bay u badan tahay. goobaha la isugu tegayana ha la yareeyo, socodkana ha la yareeyo. qof walbana ha ku dadaalo in uu ka qayb qaato sidii cudurkan loo joojin lahaa. haddaad xanuun dareento, horey ka tag baaritaanka si inta ay waqtigu cusub yahay ama aysan neefqabatin iyo dhibaato kugu imaanin aad daawo u hesho. inta ka horeysa waxaan ilaahay ka baryaynaa in xanuunku wixii uu ku dhacay uu ka qaado, kuwa uusan ku dhicinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyo, dhammaanteenna uu naga badbaadiyo. waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo idin leh kulanti dambe oo xiiso leh.